waxaan rabaa maanta in aan ka hadlo arrintan huduma number oo dalka Kenya mataqaanay ka jirta oo dadka Soomaalida inta badan ay aad u weerarsan yihiin. Huduma number waa mataqaanay waa nambarra ay dawladda soo saartay oo la rabo in dadka lagu ogaado xogtooda gaarka ah. Arrinta iyada waxay keentay khilaaf weyn oo ka dhaxayo xisbiga Jubilee dhexdiisa BRU iyo xisbiga Uhuru u hogaamiyo yaa mataqaanay u kala jabay laba garab iyagoo kuwana ay wataan huduma number kuwana ay ka soo horjeedaan. Marka kuwa ka soo horjeedo waa xisbiga ninkan la yiraahdo William Ruto iyo Aadan Barre iyo inta mataqaanay isku xisbiga way ka soo horjeedaan. Waxayna yiraahdeen huduma number waa in waqti la siiya, waqti dheer waa in la siiya si dadka hadda mataqaanay qaan gaaray ee kabaandhaha gaaray ay u helaan kabaandhahooda kadib marka iyada la sameeyo huduma number. Huduma number waxaa kale oo ku jiray oo mataqaanay iyadana maxkamadda ay diiday waxaa ka mid ahaa in la sameeyo DNA dadka laga qaado hooyadii aabaha qofkan dhalay kadib si loo ogaado qofkan asaga isirkiisa ee meesha uu ka soo jeedo. Arrinta iyada waxay ku noqotay caqabad dadkii Kenyaanka ahaa waan ognahay inta badan waxay u badan yihiin dad Christian oo mataqaanay iyaga laftooda waxay sameeyaan boyfriend san ognahay marka boyfriend markay sameeyaan qofkii wuxuu haystaa 2 cunug 3 cunug oo boyfriend uu soo dhalay iyo cunug kale cunuga asaga aabihii marka lama garan karo dood baa ka imaatay arrinta iyada maxkamadii way laash arrinta iyada way diiday. Waxaa kale oo kamid ah asna ay ku soo dartay maxkamadda ay diiday in mataqaanay qofka telefonkiisa lagu xiro GPS mise in map lagu socdo qofka meel allaale meesha uu joogo in lagu ogaado. Arrinta iyada dhib badan baa ka imaaday dawladda markii la arkay maxkamadii way laashay way diiday. waxaa kale oo asagana khilaaf ka yimid oo ilaa hadda mataqaanay asagana socdo shalay oo mataqaanay u dambeysay baarlamaanka dalka Kenya way ka fariiseen arrinta iyada ee huduma number waxayna yiraahdeen dawladda ma ilaalin karto xogta gaarka ee qofka maadaama ay ilaalin karinna ma haboono in xilligan iyada huduma number la sameeyo. huduma number ayaa waxaa nafteeda lagu soo eedeeyay hadda mataqaanay la wareegtay qandaraaskan iyada in iyada lafteeda ay ka dambeysay doorashadii hadda aan soo dhaafnay 2017 dalka ka dhacday in ay ka geystay gacan mug leh in mataqaanay doorashadii la dhaco oo mataqaanay la sameeyo isdawmar maadaama kombiyuutarada kulli ay ku saabsanaayeen 54 oo qof kasta oo soo galay uu ku soo galay 54 taasoo la yaab ku noqotay dadka Kenyaanka. marka way diideen hadda marka waxaa taagan arrin adag oo dawladda xaggeeda ah oo ay shirkadan iyada in shaqada laga joojiyo maadaama lagu soo eedeeyay in iyadaba ay ka dambeysay waxyaalihii wadanka qalalaasada galiyay. marka waxaan dhihi karnaa haddaan soo qaadano Aadan Barre Ducaale iyo governor-ga laga soo doorto Mandera Robo labadaba mataqaanay way ka soo horjeesteen. haddaan tusaale soo qaatay Aadan Barre asaga wuxuu sheegay in huduma number ay shardi ku xireen oo ah dadka Kenyaanka ee haysta faraha qaxootiga ku jira ay danta ku khasabtay in ay galaan qaxooti in dawladda Kenya ay ka saartay kadib huduma number ay qaataan. halka Ali Robo asaga uu ka hor yimid oo uu yiri waa midabta koor lagu sameeyay dadka muslimiinta iyo Soomaalida midabta koor lagu sameeyay dadka muslimiinta iyo Soomaalida. hadda san arkeyno inta badan dadka goosanayo waxay u badan yihiin Soomaali meel kasta oo tagtay ayaa goosanayo dadkii kale ee Kenyaanka ilaa hadda way sugayaan waxay leeyihiin arrinta anaga ma fahansanin maadaama aan fahansaneen yeelimeena xilligan iyada in aan qaadano huduma number. marka waxay sugayaan xilli dambe oo mataqaanay uu baas maray baarlamaanka ama maxkamadda ay si toos u ogolaato in arrinta ay sameeyaan. laakiin dhanka kale waxaa saraakiisha dawladda waxay khasab uga dhigaan dadka in ay qaataan huduma number laakiin maxkamadda dalka Kenya way diiday waxay tiri qof lagu khasbi karo huduma number ma jiro waa khiyaar qof kasta wuxuu sameynayaa asaga mataqaanay dooqiisa uu ku galiyaa uu ku soo qaadanaya huduma number. marka insha Allah waxaan idin leeyahay dadka Soomaaliyeed mataqaanay ha iska ilaaliyaan huduma number in ay xilligan ay ku degdegaan hana ka warsugaan maxkamadda dalka Kenya iyo wixii ka soo baxo baarlamaanka hala socdaan jaraa'idada dalka ka soo baxay TV-da intaba si mataqaanay ay ula socdaan wadanka meesha uu marayo. waxaa kale oo meesha ku jirtay oo hadda bariyahan is dhaxwaday in la xirayo telefoonada arrinta iyada been noqotay wax ka jira ma lahan wax telefoon oo la xirayo ma lahan. shirkadda Safaricom baa sheegtay in haddii la xiro telefoonada malaayiin dollar ay khasaarayso saadaradeed wax telefoon oo la xirayo ma jirto dawladana way beenisay arrinta iyada marka dadka Soomaaliyeed hala socdaan in mataqaanay warbaahintana aad oo la jaan qaadaan hana la socdaan huduma number meesha uu marayo in iyaga kaliya ay qaataan huduma number ma ahan.